nabaday daawadayaal waa markale iyo barnaamijkeeni muuqaalka bulshada oo aad laaba ka dhehatan TV-geena caalamiga Somali News TV barnaamijkeena maanta waxa idin la socodsiin doontaa amba alaaba barnaamijka idin la socodsiisa anigoo hibaaqidla had iyo goor wuxuu idinkaga yimaada magaalada Laascaanood ee xarun goboleedka Sool barnaamijka maanta waxa marti iigu ah Farduus Maxamuud Iimaan waa inan daayar isla markaana aan oran karo waa aqoon-yahanad waxay dhameysay jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood sanadii ina weydaaratay Farduus waa madaxa wacyigelinta ururka Sime waa urur ka jira gobolka Sool tiyadii u dambeysayna si toos ah uga hawlgalayay Sime waa Farduus bay noo sharixi doontaa waa se urur ka shaqeeya sinaanta iyo cadaaladda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan walaalaha midigmaal isla markaana waa urur la dagaalama haybsooca iyo takoorka iyo tacadiyada lagula kaco beelaha walaalaheen midigmaal Farduus ku soo dhawow Somali News TV bismillaah hibaaq waa mahadsantahay waa ku dhawahay TV-ga Somali News Farduus haddii aynu iba furno barnaamijkeena su'aasha ugu horeysan ku weydiinayo horta ururka Sime waxaan ogahay inuu bilooyinkii u dambeeyay ka hawlgalayay magaalada Laascaanood adiguna waxa tahay madaxa wacyigelinta ee ururka Sime ee gobolka Sool adiga xilkan goorma lagu igmaday waxa faahfaahin guud naga siisaa ururka Sime iyo siyaabuhu u shaqeeyo hibaaqay waa mahadsantahay waxaad i weydiisay xilli ma lagu idmaday madaxa wacyigelinta ee gobolka Sool iyo inaan faahfaahin ka bixiyo ururka waxa uu taagan yahay waa mahadsantahay mar labaad waxa aniga la idmaday xilkan bishii sagaalaad bishii COVID-19 baan leeyahay sorry ee sanadkii ina weydaartay ururka hadii aan sharaxaad ka bixiyo ururkan waxa lagu aasaasay dalka dibadiisa waxaana aasaasay oo aan is oran karaa waa qof fikir aad muhiim u ah markaana loo baahnaa in hadda lagu dhawaaqo marka ururkan waxa laga aasaasay gabi ahaantiiba dalka Canada fadhigiisu wuxuuna soo gaaray sanadkii dhamaaday ee ina weydaartay bishii lixaad meelaha ayuu soo gaaray gobolka Sool soo gaaray marka hadda gabi ahaanba wuxuu ku leeyahay gobolka xubno dhameystiran oo aan suran karo waa xubnihii ururka u joogi lahaa gobolka Sool marka ururku waxa weeyaan waa ururka sinaanta waa ururka cadaaladda iyo sinaanta ee Sime wuxuuna u doodaa mar walba u taagan yahay walaalahan reer midigmaal ama dadka tacadiyada lagula kaco sida aad bahoraba u sheegtay marka ururku waa urur isu taagay inuu yacni wacyi geliyo oo uu juhdi ku bixiyo sidii loo ciribtiri lahaa caadadan xun ee lagula kaco kamida bulshada Soomaaliyeed waxaan oran karaa marka aan anigu information ka bixiyo gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood walaalaha ku nool ee reer midigmaal waxaan is oran karaa waa dadka yacni aan tacadi badan kala kulmin gobolkan hase ahaatee tacadiga koowaad ee taagani waxay dhici kartaa oo kale xilli waqtiyada guurka oo kale yacni laba qof oo iscalmaday in yacni loogu diido hayb ahaan qof kale ama wiil ha noqoto ama gabar ha noqoto marka waxaan oran karaa tacadiyada yacni ay bulshada oo dhan saameysay waa tacadigaas marka anigu waxaan u taaganahay hadaan nahay khaasatan gobolka Sool magaalada Laascaanood inaanu la dagaalano ama aanu u ahaana member u taagan ururka qaybihiisa gobolka Sool ka qayb gali ka shaqeyn doona una mar walbana u ololeyn doona oo ku bixin doono juhdi dheeraada iyo wacyigelin gaaraysa gabi ahaanba geygan aan anagu ku noolahay ama khaasatan magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda iyo gobolka Soolba aanu anagu matali doono nalagana sugayo inaanu xubno badan aanu ku soo kordhino oo ka turjumaya haday noqoto cayn haday noqoto Sool oo gabi ahaanba degmooyin qaarkood ay maqan yihiin oo xubno nalaga tabayo marka waxaanu mar walba u taaganay maadaama waa ururku waxaan oran karaa waa urur hadda aasmay ma sha Allah Farduusay waa wax lagu farxo laakiin Farduusay waxaad sheegtay ururka in Canada laga aasaasay gudoon sare uu leeyahay intaan ogahay marka xubnaha gudoonka sare marka laanta gobolka Sool laga tago xubnaha gudoonka sare
ma u qaybsan yihiin qaybtan sida labadan beelood ee hadda beeshan loo doodaya reer Midigmaal iyo qoladan iyagu dambiilayaasha amba eedeysanayaasha ah ee kale ma u qaybsan yihiin oo xilka oo kale gudoonka sare hadduu gudoomiyuhu yahay qolada kale reer Midigmaal gudoomiye ku xigeenka ma leeyihiin sidee bay u qaybsan yihiin xubnaha sare idinka ka soo lahaanse xubnaha idin dhisan hadda waxaad sheegtay intayna wareysiga bilaabin in xubnihiinu ay ku meel gaar wali yihiin oo aad wali temporary ku shaqeynaysaan marka sidee dhismaha laanta gobolka Sool sidee u damacsan tihiin inan amba inan reer Midigmaal waa mahadsantahay Hibaaqay hadii aan intaanan u gudbin su'aalaha la weydiiyay aan yar isku dayana sharaxaad ka bixiyo Midigmaal waxa ay u taagan tahay Soomaalidu waxay u qaybsami jireen 3 qaybood oo ahayd Hibaaqay xoolamaal iyo biyamaal iyo Midigmaal marka ereyga Midigmaal waa erey soo jireenahayo guyaal badan soo jiray maadaama ay 3 qaybood bulshada Soomaaliyeed u qaybsamayeen marka oo midna uu ahaa inuu xoolo dhaqato u yahay midna uu ahaa inuu biyaha uu ka kaluumaysto midna uu ahaa inuu midigtiisa maalo oo ah midigtiisa marka uu maalayo waa isagoo birtii tumaya isagoo sidoo kale beerihii falaya marka waxa loo eragaas uu ka yimi Midigmaal waa erey soo jireena marka reer Midigmaal eragaas saas weeyaan waana dhamaan waxaanu ereyga u dooranay maadaama ay erey hore u soo jireen uu yahay haddana ay ku kala nool yihiin daafaha geyiga Soomaaliyeed ereyga midayn kara ama se kulmin kara waa ereyga Midigmaal marka ereyga saas ayaan ku dooranay waadna mahadsan tahay waxaad i weydiisay xubnaha gobolka Sool maadaama waxaad i weydiisay xubnaha sare ee ururka ma u qaybsan yihiin yacnii labada dhinac ama labada daraf Hibaaqay labada daraf mar walba waxaan priority siinay bulshada wax laga tabanayo inaanu ku fulino maadaama iyagu ay yihiin dadkii wax tabanayay inaanu ku fulino bulshadii laga tabanayay wax inaanu ku bushkarayno ama se aanu ku cadaadino in iyagii la isku diro iyagii la isku horgeeyo labadii bulshadii wax laga tabanayay in iyadii la isku horgeeyo oo ay qirato dhibaatada ay u geysanayso bulshadan kale marka waxaan oran karaa way ku leeyihiin xubno maadaama aanu nahay xubno ku meel gaar hadeer waxaan rajaynaynaa waxaanu dooranay isbuuci dhaweey xubno ku meel gaar oo ay ahayd xubinta gudoomiyaha oo ahaa xubin ku meel gaar iyo 2 xubnood oo noo soo diyaariya selection noogu sameeya doorashada iyo xubin iyana noo agarsoor oo ilaalisa waxyaalaha dhacaya markaan inta doorananay waxaan u sameeynay balance ama waxaan isniri labada darafba ha ka muuqdaan hadhowna waxaan rajaynaynaa markay doorashadu dhacdo inay mar walba labada daraf ay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen ay noqoto waxaan priority-ga siinayna in gudoomiye noqdo bulshada wax laga tabanayo waayo iyada ayaa wax laga tabanaya oo aan rabnaa inaanu ogeysino dhibta laga tabanayo in iyagana taabato oo aan iyaga isku durno iyaga ay keenay waxane iyagu ay Firdawsay taasi waa taabay nooran karnaa waa war dhamaaday dhaqameedani waa mid soo jirtay in badan isla markaana aad oran karto Soomaalidu markay dhalatay amba la abuuray bay la dhalatay iyaduna dawladda burburin kari waayay dawladii Siyaad Barre waxaanu ugu mahadinaynaa in uu gudoomiye ku xigeen Ali Samatar oo kale gudoomiye ku xigeen oran madaxweyne ku xigeen uu ka ahaa Ali Samatar oo ka soo jeeda walaalaha beesha Midigmaal markaas oo qabyaalada la aasay oo dalka Soomaaliyeed mid ahaa la oran karo waxyaabo badan oo aan maanta jirahban maalinta jirin bay xaaladu isbedeli weyday dawlad military xoog badan bay ahayd waxa la gaarsiiyay dadka in la yiraahdo dadku ay jaale kelmadda jaale ka sinmaan marka ma la oran karaa dawladda Siyaad Barre military ahayd baa waxan waxba ka qaban kari weyday habsoo ay midabta koorka umada Soomaaliyeed ka dhaxeeya marka sidee bay bulshada isweydiin kartaa sidee bay sime u qaban karaan
waliba simay qurbuhu ka soo aas-aasmay baa tiri mase damacsan tihiin in gobolada oo dhan maamulka ay doonaan baha sheegteene gobolada oo dhan la gaarsiiyo hibaaqay waa mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay waa su-aal aad muhiim u ah waxaad i weydiisay seebaad idinku haddii ay dowlado iyo dad xoog u leh ay muquunin kari waayaan caadadan xun ama ka saari kari waayaan ama tirtiri kari waayaan idinka sima ahaan maxaad ku wajahaysaan arrintaa ama see u baabi'in kartaan arrintan hibaaqi waxaan ku odhanayaa caado xun baa jirtay oo soomaalidu ay ku dhaqmi jirtay oo ahayd caadadii fircooniga waxaa loo galay dadaal baa lagu bixiyey juhdi baa la geliyey waxaa ka qayb qaatay culimadii waxaa ka qayb qaatay madaxii waxaa ka qayb qaatay haweenkii waxaa ka qayb qaatay dhallinyaradii meel baa looga soo wada jeensaday waxayna ahayd caado xun oo ina dhibayso markaa ina taabanaysay caadadii hadda waxay u eg tahay ama saan anigu ku qiyaasay inay sii dabar go'ayso marka hadda dhallinyaradii dadkii way dhib baa taabatay burbur baa dhacay dadkii way kala qaxeen qofba meeshii ku beegantuu wejiga saaray marka maadaama ay saa tahay dadkii dhibaatadii way wada taabatay markii qurbihii la wada tegey marka waxaan odhan karaa hadeer dadku markaa iyo hadeeray bisil yihiin oo caadadii iyo dhibaatada ay leedahay iyo wax walba ay ka ogsoon yihiin caadadanna waxaan is odhan karaa waxaanu ku baabi'in karnaa amase aanu kaga qayb qaadan karnaa iyadoo bulshada soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeesato oo annagu ururkayagu waxaanu u furnay amase aanu ururkan uu loo keenay fikirkan in bulshada soomaaliyeed ay meel uga soo wada jeesato dhammaan geyiga soomaalida ay degto ku nool shanta qayb ee soomaaliya inay meel uga soo wada jeesato hadday noqoto NFD hadday noqoto Djibouti haddii ay noqoto Mombasa dhammaan geyiga soomaalida degto inay meel uga soo wada jeesato arrintan caadada xun waxaan rajaynaynaa inaanu annagu aanan marnaba ka daalin oo aanu juhdi gelino oo aanu wacyigelinta ku celcelino oo aanu madaxda hadday noqoto meeshay doontaba ha ku noolaato hadday noqoto culimada oo kale inaanu la kaashano hadday noqoto garabkii haweenka oo kale hadday noqoto dhallinyaradii hadday noqoto qof kasta oo qalbigiisu uu taabanaysa caadadan ama wax garanayo aqoon-yahan oo dhibaatadan og inaanu aanu dhahno inuu ka qayb qaato oo uu juhdi nagula bixiyo soomaaliduna waxay tiraahdaa gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan haddii annagu aanu murmurlayno waxaan u malaynaya inaan keliya wax qaban karayn laakiin hadday bulshada soomaaliyeedna taageerto ka urur ahaan inaanu wax qaban karno waanu arrintaa aanu fikirkeeda keenay inaanu ka midho dhalin karno waanu is odhan karaa anigu caadadan ama wase iila muuqatoba caadadan waa laga tanaasuli karayaa haddii juhud la geliyo oo culimaduna aysan ka gaabsanin waayo Soomaalidu waxay wax ka dhageysataa waa culimada ama si ay soo istaagtaa oo priority siisaa marka culimada aad bay uga qayb qaadan karaan arrintan waxaad igu tiri gobolada oo kale hibaaqay gobolada haddaba kama midnin oo xubno ayaa noo joogna matalaya urur ahaan oo hadday noqoto NFD hadday noqoto kilka shanaad haddii ay noqoto Mombasa haddii ay noqoto dhammaan geeyi Soomaaliya degto xubno ayaa noo jooga oo nagula midaysa fikirkan waana rajayn doonaa inaanu dhammaan laamo ka wada furno meel kasta oo soo ahay Soomaalidu degto ama geeyiga Soomaaliyeed inaanu laamo ka furno ururku uu leeyahay inaanu ka qayb qaadano oo aan mar walba ku celcelino inaan wacyigelinta aan marnaba ka daalin Farduusay inaha aad sheegtay wax bulshada farxad gelin karaan oran karnaa balse mid baa jirta Soomaalidu waxay tiraahdaa amba ay iska batahay markaad wax bilaabayso waxa fiican naftaada inaad ka bilowdo Farduusay waxaad ka dhawaajisay arrinta guurku in ay labadan beelood hadii ka dhex aysan ka baxdhicin hadii ka dhex dhacdana ay mushkilad nololeed iyo kuwa family oo badan ba sameeyso amba inankii la dilo amba inantii la dilo halka khasaare kale oo nafeed ka dhasho marka Farduusay adiga maanta hadii lagu yiraahdo inantaada in reer midig maala u dhis ma ogolaan lahay kaftanahayga ahaatee hibaaqay waa maadsan tahay oo eray waxaad weydiisay muhiim ah hibaaqay
waa caado xun oo soo jireena waxaan kugu waxa lagu baabiin karaa guurka aniga ka ra'yi ahaan waxaad igu tii inantaada siin lahay wiil reer midig maala diinteedu diidaysay baaqay ma diinteena diidaysa islaamka waa may jawaab Soomaa laakiin dhaqanka Soomaalidu diiday dhaqanka Soomaalidu caadada Soomaalidu diinteena inay lid ku noqoto anigu ma jecli marka diiniyan hadaysan diinteeduba u diideen ana maxaan ugu diidayaa wasiin lahaa jawaab wanaagsan baad bixisay kamradalkeedana waa lagaaga fadhiyaa taasi waa taa Firdawsay waxa jira bulshada reer midig maal waxa la oran karaa waa warshada wax soo saar ee Soomaalida haday noqon lahayd waxyaabaha la sameeyo haday noqon lahayd biraha midig maal bayba kula baxeenba marka caawimooyin kala duwan bay u baahan yihiin dadyoogaasi maraan booqday suuqa kaboolayaasha ee la sacaanado kale waxay ii sheegeen inay caqabado badan kala kulmaan inay helaan maaska iyo waxyaabaha kale ay wax ku farsamaystaan marka sime maxaa qorshe caankee aaba uga diyaarsan inuu dadyooga caawiyo waxa kale oo jirta walaalaha reer midig maal xaafadaha ay ka degan yihiin magaalooyinka waaweyn hadda la sacaanado kale daami bay degan yihiin daami iskuulo ma leh fiican intaan ogahay hal midh baa ka jira male dhanka nadaafada oo kale ma fiicna marka olole caankee ah miyaysan fiicnayn si haddaan idhaahdo inaad olole ku qaadaan daami oo kale in caruuraha reer midig maal ay helaan waxbarasho free ah si ay ugu noolaadaan ubadka kale ee dhanka kale nolosha ay ku nool yihiin si ay walaalaha reer midig maal ugu noolaadaan qorshe caankee ah markaad soo qabto baa halkaa idinka diyaarsan baaqay waa mahadsan tahay su'aasha aad weydiisay maxaa idinka diyaarsan ama idinka qorshaysan inaad yacni ka caawisaan dhankii farsamada walaalaha reer midig maal ama bulshada reer midig maal hibaaqay ajandayaasheeda noo degan ama qawaaniinta noo degan ayay ku xusan tahay qodobkaas oo ah inaanu ka sabood garayno ama si aanu ka taageerno inay farsamadoodii ay si hawl yar ama dhib yar ay ugu fusho inaanu ka taageerno inay helaan qalabkii farsamo ee u sahlayay inay shaqadooda sii wataan waxaanu kaloo noo diyaarsan inaanu mar walba ku dhiirigelinano farsamadoodu inay farsamo marnaba aan laga maarmin bulshada Soomaaliyeed marnaba kama maaranto farsamada ay noo hayaan walaalaha reer midgaan haddana waa farsamo mar walba lagu duro anigu farsamada waxaan u arkaaba inay farsamo aad muhiim Soomaaliduna aysan ogeynba ay ku hoos baxsan tahay marka farsamada mar walba waanu ku dhiirigelinanaa ama waanu ku taageeranaa inaanu siino qalabkii markaa u sahli lahaa ama si ay hawshooda si hawl yar ugu gudan lahaayeen mar walbana waa taan u taaganahay haday noqoto dhanka iskuulaadka waxa tiri waa run dhanka iskuulaadka waxay kala kulmaan caqabado aad weyn gaf gaboodfal eray xun oo lagu tuurayo intaaba xataa iskuulada kale marka ay tagaan waxay uga hadhaan waxbarashada ay uga dhacaan erayo lagu oranayo oo lagu tuurayo oo aysan munaasib ku ahayn oo qalbigoodii iyo maskaxdoodiiba hoos u dhigay marka inuu qofkaasi rabay waxbarashada ama hamiga waxbarashadu ku jiray inuu ba ka batanaasulo waxbarashada uga cararo eray xun oo lagu oranayo ama yacni duritaan la durayo marka waxa anaga noo qorshaysan inaanu ka sabood garayno ama si aanu ka taageerno dhanka waxbarashada mar walbana waa taan u taaganahay inaanu mar walba aanu taageerno inaanu kor u soo qaadno dhankii waxbarasho haday noqoto si dadka kale ula tartamaan haday noqoto dhankii farsamadoodii inaanu kor yana u qaadno oo aanu tusno in farsamadoodu ay tahay farsamo cajiib ah aanu bulshada kalena ka dhaadhicino ee kale ee aan Soomaalida ahayn kuwii Soomaaliyeedna aanu tusno farsamadan inay farsamo qaaliya tahay marka saasan kaga baxaya hibaaq Firdawsay gunaanadka barnaamijkeena adoo soo koobaya baaqa u dambeeya ee aad u dirayso bulshada Soomaaliyeed ee la eedeynayo isla markaana lagu durayo in iyagu tacadiyada sameeyaan su'aashayda labaad ee inta ku raacinaya waxay tahay raja intee leeg badka Firdaws ahaan bad ka qabtaa inay arintani midho dhasho
maalinu noloshaada ka midana aad aragto wixii aad ku hamiyeysay oo hirgalay iyo bulshada Soomaaliyeed oo si sinaan iyo cadaalad ugu wada nool dhulka Soomaaliya ibaaqay waa maadsan tahay waxaad ugu jiray maxaad kaga faa'iideysanaysaa fursadan qaaliga ee Som News ay ku siisay ama si aad ka heshay waxaan kaga faa'iideysanayaa horta intaan faa'iidadaba u gudbin ibaaqay waxaan yara gafay inaan halkan xuso asaasii ururka oo ah Suldaan Cabdikariin Ibraahim oo jooga dalka Canada oo ah nin dhalin yar maskaxda uu keenayna uu bulshada Soomaaliyeed uga faa'iideeyay aan rajaynayay in bulshada Soomaaliyeed sidoo u keenay inay yana juhud ugu bixiyaan maadaama maskaxdiisa in badan uu ku mashquuliyay arintan haddii aan u gudbo maxaad kaga faa'iideysanaysaa fursadan qaaliga horta dhammaan geeyiga Soomaalidu degto waxaan u dirayaa baaq ah in ay ku daraan manaahijta dugsiyada dhexe maada kamida oo ka turjumaysa dhibaatada lagu la kaco ama gabadfalka loo geysto walaalaha reer midigmaal in lagu daro manaahijta ayaan ka codsanayaa dhammaan geeyiga Soomaalidu degto in maadada lagu daro si loo tuso ka dhalinyaro ahaan maskaxda soo koraysa dhibaatada ay leedahay tacadiyada loo geystaa reer midigmaal waxaan kaloo baaq u dirayaa dhammaan geeyiga Soomaalidu ay degto bulshada ku nool qaybta doontaba ahaatee inay nagala qayb qaataan fursadan ayna u furan yahay ururku qof kasta oo qalbi saliim leh oo taabanaysa dhibtaas ama arka dhibtaasi inay tahay dhibaato aad u xanuun badan inuu ururku u furan yahay inuu ku soo biiro unu juhdina la geliyo waxaan kaloo iyana baaq u dirayaa oo uga faa'iideysanayaa dhammaan culimada Soomaaliyeed meel kasta ha ku noolaadaan inay nagala qayb qaataan arintani waa arin caado xuna waa arin muddo badan iyo guyaal badan lagu soo jiray hase ahaatee maanta aanu anagu aragno inay taagan tahay waqtigii laga tanaasuli lahaa oo aanu u arko inuu ururkan yahay ama si uu ka midaysan yahay inay dhalinyaro ay wada yihiin waa fursad ugu qaalisan in dhalinyaro wax soo saar leh ama si hami ku jiro shaqo inay arintan galiyaan juhdi ay ku jiraan iyo dhalinyaro wax baratay waliba aqoon-yahan u badan ama aan oran karay waa wada aqoon-yahan dhalinyarada ku jirta waayo qof aan dugsi sare iyo heer jaamacadeed kuma jiro meesha dhamaantood waxay wada jirtaan ama bachelor sitaan ama master sitaan ama ha ahaato inay dugsiga sare ba dhameeyeen waa dhalinyaro dhanka aqoonta ka dhisan marka waa dhalinyaro iyagu juhdi gelinaya iyagan yacni cidna u daba fariisanaynin cidna aan amar weydiisanaynin inay juhdi ku bixiyaan arinta macaadada xun ee lagu la kaco walaalaha reer midigmaal waana caado aad u xun oo qof kasta oo Soomaaliya marka aad weydiiso su'aasha ku tiraahdo uniyo ka waran arinta uu ku dhahayo wallahi waa arin aad u dhib badan arinta ay dadkaas lagu la kaco reer midigmaal waa arin aad u dhib badan marka qof walba oo Soomaaliya haduu qirayo caadadan in caado xun tahay maxaa u diiday in laga tanaasulaba wayna u dhowdahay waana rajaynayaa oo rajadaydu waxaan rajaynayaa inaan arintan maalmaha kamida aan arko dhammaan bulshadii Soomaaliyeed oo ku wada nool cadaalad iyo sinaan kaasaasan kaga baxayaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa fursadan qaaliga TV-ga Som News dhammaan shaqaalihiisa meeshuu doonaba ha jooge ayaan u mahad celinayaa khaasadan waxaan u mahad celinayaa Hibaaq Idle Maxamed oo mar walba barnaamijka muuqaalka bulshada ka tabisa gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood oo bulshada yani u sawirta saadaasha ay ku sugan tahay magaalada Laascaanood iyo Mawlid Ismaaciil Haradigeed oo ah isna wariye ka hawlgala TV-ga oo labaduba aatiin shaqaale TV-ga ka hawlgala kalabadina aad baan idigu mahad celiyeen koosku الله ku sharfo sidaad noo sharaftay aad baan anaguna kugu mahad celinaynaa waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeeni muuqaalka bulshada waxaan aad ugu mahad celinayaa barnaamijku la'aantii hirgaleen injineer Haradigeed intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono waa Hibaaq Idle idin leh nabad iyo warsan